وعنا wanaagsan daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin iyo si walba noola socotaan ba halkaan naga daawanaysaani waa Murti Media kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelan doono injineer Mukhtaar Sheekh Cumar Aadam oo ah gudoomiyaha boardka Rays Microfinance oo aanu su'aalo badan oo ay bulshada qaybaheeda kala duwan qabaan aanu halkan ka weydiin doono waayahay injineer ku soo dhawow barnaamijka كل سؤال بدن بتشير دون إن شاء الله تعالى وهالكن إن شاء الله بسوينا ما تدرس ودرسه ما دام أي شيران قريب بدن أو بسميدا أو سؤال قضاء أما أي ما تعال في سنين والمرة بشاشة الصور فرصتان ورساسي وحي قضته عدة أساسي وحي كسر برامجك كل سؤالها أن ما أنت هلك نسكوي دين دون أدبي وبدنيهين لكن وحن شعلان لها أن كود أقومهم سن إن عن مقارنة ساينو صهر مريو سؤال ugu horeysa aan jeclaan lahayn inaan ku weydiin waxay noqonaysaa Rays Microfinance yaa asaasay ama xilliga la asaasay media iyo fursadda ay nasiyeen ku saabsan inaan warbixin ka bixino Rays Microfinance Rays Microfinance horta magaca Rays waa magac Soomaaliyeed oo u taagan sayaxa iyo roobka markuu dooyay barwaaqada u taagan yahay magacaasi Rays waxaa asaasay ganacsato ka soo jeeda deegaanka Soomaalida waxaana la asaasay 2014 2015 ayaa furitaankii xafladii lagu sameeyay Jigjiga waxaana markaa la furay labadii branch ugu horeysay oo laga furay Jigjiga iyo Goday nasiib daro maalintii ku xigtay maalinta la furay maamulkii markaa jiray ayaa go'aansaday in la xiro Rays Microfinance si deegaanka ka shaqeynay maalintii ku xigtay waa la xiray xafiisyadii lagana mamnuucay shaqadii markaa ay Rays qaban lahayd muddo 4 sano iyo badh ah ayay Rays ka maqnayd deegaanka oo ay ka shaqeynaysay deegaanka Oromia iyo Afarta muddada ay ka maqnaydna sababaha ay u maqnayd waxa weeyaan inay u suurtagali weyday deegaanka inay ka shaqeyso isbeddelku markuu yimid 2018 ayay Rays dib ugu soo noqotay deegaanka inay shaqada dib uga bilowdo labadii branch ee ugu horeysay ay furatayna dib ay u yagleesho dib loo furay Jigjiga Goday ahaa marka Rays sidaas ay u taagan tahay shaqadeeduna ay ku saleysan tahay waayahay adeega Rays Microfinance maxay kaga duwan tahay adeegyada kale ee la midka ama bangiyada kale arinta aan ku sheegay ahayd inaan 7 maalmood shaqeeyno aan kaga duwanahay waxaan kale kaga duwanahay waxaad ugu tagaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo si fiican u carbisan oo dadka soo dhaweyntiisa ku wanaagsan afkaagii hooyay Soomaaliga kugu hadlaya foomka aad bixinaysaa af Soomaali way ku qoran yihiin waa meeshaadi marka arintaas ay kaga duwan tahay way kaga duwan yihiin bangiyada kale in la jooga way hadii aan inta kaga soo laabto su'aasha ama faahinta aadaan ka soo laabto waxa jirta iyadana su'aalo kale oo bulshadu ay qabaan su'aalaha ugu badan ee marka la isweydiiyo ama aniguba aan arko iyadoo la isweydiinayo waxa kamid ah adeegyadan ay Rays Microfinance qaabka ay u shaqeyso ma yahay nidaam waafaqsan shariicada islaamka ma yahay nidaam waafaqsan marka su'aalaha noocaas oo bulsho badan oo ma garanaysa adeegan isticmaasho maskaxdooda ka dhex guuxaysa ama wa jeclaan lahaa inay isticmaalaan oo macaamiisha Rays ay noqdaan jawaabta aad siin lahaydeen maxay tahay boqolkiiba boqol Rays Microfinance nidaamka ay u shaqeynayso waa nidaam waafaqsan shariicada islaamka waxay Rays leedahay guddi arrimaha salgooya oo shariicada takhasus u leh mucaamalaadka maaliga ah ama maalgelinta ay Rays sameynayso dhan waxay ku saleysan yihiin xalaal waxay ka yihiin waxa la yiraahdo ribada ama dulsaarka bangiyada kale deegaankeena jooga ee Ethiopia waxay leeyihiin qaarkood daaqad ay ku tilmaameen inay tahay daaqad mataqaanay interest free banking
marka macnaheedu waxaa weeye interest ma qaadano daaqadaasi. Marka dadka markay lacagta dhiganayaan ma kii freega ahaa baad u baahan tahay inaad qaadato oo aad buuggii freega ahaa lagu siiyo, ama ma kii kale aad u baahan tahay, su-aasha waa la weydiiyaa. Marka daaqadaasay dadkeena bulshadeena badanaa ku xidhan tahay. laakiin Rays Microfinance adeegay bulshada siiso waa mid ku salaysan shariicada islaamka, ribana xalaalka ah oo aan ribo shaqo ku lahayn. waa injineer haddaan intaa kaga soo laabto su-aashaydii hore, ma jiraan wax hadday noqoto dhinacii maalgelinta iyo hadday noqoto dhinacii shaqa abuurka qaybihiisii kala duwanaa oo aad fulisaan ma jiraan, ama aad dhalinyarada ku caawisaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan? arrimahan u taagannahay ugu muhiimsani si aan uga qayb qaadano horumarka bulshada waa inaan maalgelin samayno. qaybta waliba bulshada aanu aad u danaynayno maalgelinta inay ka faa'iidaystaan waa dhalinyarada iyo danyarta haweenka. dhalinyarada kuwa magaalada jooga iyo kuwa miyiga joogaba mid waliba dayn ama maalgelin ku habboon oo sharciyadeena islaamka waafaqsan in ay Rays ka helayaan. haddana intii aan jiray dayn badan oo bixinay baa jirta, dad badan oo dhalinyaro fara badan oo ku fiicnaaday oo ku hodmay oo iskana soo celiyey, dayntii iska soo celiyey. runtii bulshadeenu waa bulsho aad u wanaagsan, waa bulsho ammaano ku salaysan, waa bulsho wax yar u baahan horumarinteeda. marka markaanu barbar dhigno bulshooyinka kale, bulshadeena waa bulsho mataqaanaa ku salaysan dhinaca ammaanada. marka arrintaas horumarin wanaagsan baan ka samaynay. haddana welina diyaar baanu nahay oo dadku branchiyada Rays Microfinance inay yimaadaan oo ay proposal soo gudbistaan, aragtida businesska ay doonayaan inay soo gudbistaan ayaanu u diyaarsanahay. meelaha laga soo gudbisan karayana intii aanu hadda shaqaynaynay aan soo noqonnay waxaan hore u sheegay inaan 2 branch shaqada ku bilownay. branchiyadaas oo Jigjiga iyo Goday ahaa, laakiin maanta meelahan ka shaqayno way ka badan yihiin intaas. Rays branchiyadeedu waxay ku baaheen deegaanka qaybihiisa kala duwan, siiba waxay kala joogaan Addis Ababa, Dirdhawa, Jigjiga, Wajaale, Fiiq, Dhagax Buur, Qabri Dahare, Goday, Wardheer, Doolacado, Jarati, Hargeyle iyo Mooyaale. intaaba waxaa ku yaala branchiyadii Rays. deegaanka saa ugu firirsan waana sii kordhinaynaa, waan sii wadaynaa. meelaha baahiyo ay ka jiraan aan bangiyada lahayn inaan weliba tixgelinta sii siino oo branchiyo kale aan ka sii furo. waa ka howlanahay arrintaas hadduu alla idmo. waxaa jira bulshadeena Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa intooda ugu badani ama deegaankeenaba 70% wax dhan baa reer guuraa ama bulshada qaybaha kale ee magaalooyinka ama caasimadaha ka durdurugsan kuma baraarugsanaa in la isticmaalo adeegyada noocan oo kale ah ama bangiga in wax la dhigto. kii wax yaraysto waxaa laga yaabaa deen intuu ka shaqeeyo ma garanaysaa barkado. marka wax ma idinka qorshaysan yihiin ma garanaysaa bulshadeena fahan gaar ah laga siiyo arrimaha noocaas oo kale ah inay ku soo biiraan adeega bangiyada? waa su'aal aad muhiim u ah. runtii bulshadeenu bulsho bangi la qabsatay ma ahayn. Somali Microfinance baa sii jirtay oo naga horeysay oo deegaanka sii shaqaynaysay. xoogaa yar bay naga horeeyeen, haddaanu la bilaabi lahayn 2014 ma aysan suurtagelin. marka runtii dee microfinance-ga adeegiisa bulshada way sii bareen oo shaqo sii jirtay bay ahayd. annaguna waxaan nahay microfinance-ga labaad deegaankeena ka codtay bulshadeena ku soo biira. Rays saasay u taagan tahay, weliba si gooni ah loo leeyahay oo ganacsato isu tagtay oo deegaankeena ka coreeyay Rays Microfinance. midaas marka laga yimaado waxaan dadka mataqaanaa ku boorinaynaa microfinance-yadaas deegaankeena laga leeyahay inay lacagtooda ku kaydsadaan. Rays meel kastay ka furan tahay waxay diyaar u tahay inay dadka ay ka caawiso sidii ay lacagtooda u dhigan lahaayeen, ammaanana ay ku sifaysan tahay, nabadgelyana sidaas ayaga ugu jirto. hadda waxaa jirta in nidaam cusub soo baxay oo lacagtii hore la bedelayo oo lacag cusub ay jirto
lacagta cusub si dadkeena bulshadeena ay ugu bedelaan lacagtoodii hore aysan ugana dhacamin aysan uga dhicin yani dhac iyo dhacantoona inaysan dhicid iyo dhacan midna inaysan gelin darteed baanu arrintaas mataqaanaa gurmad aanu arrintaa u gurmanaynay bulshada samaynay in ka badan 1,300 oo kiilo ku fiirsan deegaankeena ayaan arrintaas heegan u taagan inay bulshada ka soo xareeyaan lacagta ka qaadaan waxay ku fiirsan yihiin qabalayada waxay ku fiirsan yihiin degmooyinka iyo gobolladaba marka magaalooyinka waaweyn councilada meel walba way joogaan marka waxay u diyaarsan yihiin qofkii dee joogay meel yar oo tuula oo dhowr kun oo bir haystay inuu soo safro oo magaalo weyn yimaado oo lacagtii bangi keeno oo iska bedelo arrintaasi dhib badan baa uga sugan laakiin ilaahay mahadiis waxaa meesha ugu diyaarsan sahay agent baa tuuladiisii ama degmadii ku dhoweyd uusan ka waayin ama tuuladiisa lafteeda uu ka helayaa kaasuu isaga geynayaa wuxuu ku bedelanayaa float buu bedelanayaa ama hawada sahay buu ku bedelanayaa marka mar hadday sahay u soo gasho mobilkiisa lacagtaas way u bedelan tahay hadduu halkaa ku haysto safe ay ugu ahaato lacagtaasi lacag u bedelan dhowrkiisaa kun ee bir marka dambe u baahdo inuu qaato wuxuu ku qaadan doonaa iyadoo lacagtii cusbayda marka kamana dhacayso kamana dhacmayso haddii mobilkiisa mar ugu jirto meeshaad lacagtaada ku kaydsanayso waxaad u baahan tahay inaad shaqaalo ka hesho oo dhallinyaradeennu ay ka shaqeeyaan meeshaad lacagtaada ku kaydsanayso inaad maalgelin ka hesho aad xuquuq u leedahay waa in xaqa maalgelintana laga helo meeshaad lacagta ku kaydsanayso luqadaadii iyo dhaqankaagii iyo waxaad adigu jeceshahay inaad lagugula hadlo ama lagugu adeego inaad ka hesho ayaad xaq u leedahay marka inahaasoo dhami waa waxay bulshadeennu xaq u leeyihiin degan deegaanka marka bulshada deegaanka ku dhaqamay in ay lacag inay iskaga kaydsadaan meel ma ahayn lacagta horta kaydka ha bartaan oo ha kaydsadaan oo nina waxba kaydsanin yaa meel lama gaadho marka adoo wax kaydsanaya ayaa haddana xuquuqaha kale kaa maqan inaad ku hesho kaydsigaagii loo baahan yahay oo shaqaalayn leh oo maalgelin leh yaa oo ixtiraam iyo sharaf iyo luqadaadii ood helaysaa muddadii iminka aad joogteen ama aad sida rasmiga u shaqaynayseen ee deegaanka sida rasmiga aad uga shaqaynayseen waxyaabaha aad soo kordhiseen maxaa ka mid ah la odhan karayaa adeega sahay horta sahay lafteedu waa erey Soomaali ah oo waa sahaydii la qaadanayay qofku markuu safrayo meel aadayo kama maarmo inuu sahay qaato marka dadweynaha qaar baa laga yaabaa inay u maleeyaan erey Soomaali aan ahayn oo sahaydii amxaarada oo kale yani luqadda amxaariga sahay qoraxda ahaa ayay dadka qaarkii u qaataan in sahaydina ka soo jeedo marka sahaydu waa Soomaali waana sahaydii la qaadanayay waxaadna ku garan kartaa xataa calaamadda sahay shirkadda sahay calaamadeedu waa qandigii waagii hore traditional qandigii lagu qaadan jiray dhaqan ahaan qadaadiicda iyo sahayda yartee la qaadanaya lacageed waa qandigii lacagta lagu qaadan jiray kiishada la gashan jiray dhalinyaraatiin oo idinku waxaa laga yaabaa inay arrimahaasi nana u soo gaadhin waxaan u soo gaadhin baasho iyadoo ama boorso lagu qaato ama bac baalka lagu qaato marka qandigaasi ayaa calaamad u ah markaa saasay sahay ku tahay dhinaca kale haddaan dib rays ugu soo noqdo rays adeegyada ay bixiso adeeg ka mida weeye adeegga sahay yacni shirkadda rays ayaa sahay iskale adeegyada ay bixiso waxaa ka mid ah mobile money paymentigaas oo nidaamkan sahay loo adeegsanayay teknolojiyada casriga ah ee mobileka lacagta laga dirayo adeegyada ay bixiso rays waxaa ka mid ah in ay maalgelin u samayso bulshada inay dadku lacagahooda ku kaydsadaan oo account laga furto sida bangiyada lacagta lagu kaydsado marka in lacaga la isu diro dadku mataqaanaa ay branchiyada kala gedisanay rays ay lacag isugu diri karayaan marka waa adeeg ka mid ah adeegyada shirkadda rays microfinance ay iska leedahay marka rays deegaankeena ka colatay sahayna sidaasoo kale rays baa dhashay iyadana deegaankeenu bay ka colatay teknolojiyada ay ku shaqaynaysay nidaamka oo dhanna waa mid ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaankeena soo agaasimeen waa tahay daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa wareysigeennii koobnaa ee aanu la yeelanay injineer Mukhtaar Sheekh Cumar Aadan oo ah gudoomiyaha boardka Rays Microfinance
dhanka kaamirada waxaan uga mahad celinayaa saaxiibkii maxamed cabdiqaadir tan iyo intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo amaan allah